بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال كسو دواده wararkii ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka qodobada daawad doontaan waxa qayb ka ah madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo safar degdeg ah ku tagaya magaalada Seylac ee xarunta gobolka Salal haddaba safarkan muxuu salka ku hayaa waa samaxay tallaabooyinka uu qaadi doono madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo la doonayo in wax badan looga bedelo deegaanada galbeedka Soomaaliland oo waqti xaadirkan ay ka taagan yihiin colaado xoogan oo u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Samaroon oo isku haya hirgelinta iyo sidoo kale xafladda buugga Ciise oo la doonayo in laga hirgeliyo magaalada Seylac ee xarunta gobolka Salal waxaan kula wadaagi doonaa diyaar garowgii ugu dambeeyay safarka madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo waqti xaadirkan laga dareemay magaalada Hargeysa tallaabooyinka uu qaadi doono iyo sidoo kale qorshe ballaaran iyo sidoo kale waxyaabo muhiim ah oo waqti xaadirkan Ciro uu doonayo in uu ku dhaqaaqo ayaan warbixino kala duwan kaga hayaa sidoo kale beesha Samaroon dagaal ay u diyaar garoobaysaa waxaana mar kale la soo bandhigayaa jabhado iyadoo oo qaar ka mid ah jufooyinka beelaha Samaroon ay bilaabeen in ay soo bandhigaan jabhadihii ugu badnaa kuwaasi oo ku soo biiraya ciidamada loogu magac daray madaniga gobolka Awdal ama deegaanada bariga ee galbeedka Soomaaliland aan iraahday kuwaasi oo la doonayo sida ay xoguhu tilmaamayaan in beesha Samaroon ay kula dagaalamaan beesha Ciise oo iyaduna qaadatay go'aan dagaal kadib markii ugaaska beesha Ciise uu gabi ahaan diiday wax wada hadal ah sidoo kale uu ku adkaystay xeerka iyo buugga Ciise in laga hirgelinayo deegaanada galbeedka Soomaaliland ka tirsan si gaar ah magaalada Seylac waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo sidoo kale sawirro iyo muuqaallo muujinaya jabhadahan aan ku sii qulqulaya aagga magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ilaa iyo hadda tallaabooyin caynka ah ayay qaadeen ciidamada militariga Soomaaliland waxaan kaga hayaa xogo dheeraad ah xilli dhawaan talisyo ama saraakiil cusub loo magacaabay gobolka Awdal iyo guud ahaan deegaanada galbeedka Soomaaliland qodobada kale xasaasiga ah daawad doontaan waxa qayb ka ah wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose waxay sheegayaan in ay jiraan dagaalo qaraar oo u dhaxeeya argagixisada Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada Jubbaland oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka howlgalladan deegaanada ay ka dhaceen khasaaraha jira ayaan warbixino iyo xogo kala duwan kaaga hayaa qodobada kale Soomaalida ka baxsan ee sidoo kale aad daawad doontaan waxaa qayb ka ah dowladda Israel ayaa bilowday in gebi ahaanba ay jabiso waxyaabihii lagu heshiiyey heshiiskii Sharm el-Sheikh kadib markii duqeymo xoogan ay ka fulisay saacadihii lasoo dhaafay gudaha marinka Gaza sidoo kalena ay beegsatay saraakiil muhiim u ah kooxda Xamaas war la yaab la soo saartay sidoo kale waqti xaadirkan miyuu gebi ahaanba burbur ku dhow yahay heshiiskii Sharm el-Sheikh maadaama Israa'iiliyiintu ay bilaabeen in ay si bareer u beegsadaan dhammaanba saraakiisha qaybaha kala duwan ee ciidamada Xamaas ee ka howlgala gudaha magaalada Gaza waxaan kula wadaagi doonaa xogo xasaasi ah oo arrimahaasi ku saabsan iyo sidoo kale khasaaraha jira halka uu marayo wejiga labaad ee wada xaajoodida la doonayo in lagu dhameeyo arinta Xamaas iyo sidoo kale Israel qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordhaya daawad doontaan balse marka hore soo dhawaada laagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada sidoo kale qayb ka noqon saaxiibada ku xiran waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 30,000 oo subscribe kaliya safarkeen adiga ayaa ka dhiman isuulka saar oo subscribe inoo saar channelka mahadsanidin waagaga aynu ku bilowno sidaan xogaa ku helayno madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa la xaqiijiyay markii ugu horeysay in safar degdeg ah ugu baxayo magaalada Seylac ee xarunta gobolka Salal waxaana madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro la sheegay in uu damacsan yahay qorshayaal kala duwan kuwaasi oo la doonayo in laga hirgeliyo deegaanada galbeedka Soomaaliland oo waqti xaadirkan uu ka taagan yahay muran xooggan Cabdiraxmaan Ciro ayaa saacadihii la soo dhaafay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa uu kulamo kala duwan kula qaatay saraakiil iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland sidoo kale kulankan waxaa qayb ka ah sida ay xoguhu tilmaamayaan ganacsato iyo sidoo kale shirkado kala duwan mas'uuliyiintooda oo ka socota Imaaraadka Carabta waxaana xogii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro toddobaadkan gudihiisa uu doonayo ama toddobaadka soo aadan dabayaaqadiisa uu doonayo inuu tago magaalada Seylac ee xarunta gobolka Salal halkaasi ayuuna doonayaa in mashaariic kala duwan uu ka dhex dhigo ama uu ka fuliyo dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa marka hore waxay doonaysay maalgelinta mashaariic kala duwan oo laga sameynayo deegaano ka tirsan galbeedka Soomaaliland si arrimahaasi loo fuliyo iyadoo qorshahaasi dhirinteeda la waday ayaa galbeedka Soomaaliland waxaa ka kacday dhibaato maadaama xeerka iyo buugga Ciise
arrinteeda muran xooggan ay keentay waxaana arrintan la aaminsan yahay in marka horeba la doonayey in lagu burburiyo somalilan iyo deegaanada galbeedka mashaariicda la doonayay in laga fuliyo laakiin madaxweyne cabdiraxmaan ciro ayaa waxa u muuqdaa in uusan doonin in gebi ahaanba uu dhag jalaq u siiyo dhibaatada xooggan ee waqti xaadirkan ka taagan deegaano ka tirsan galbeedka somalilan waxaana haddan uu doonayaa dhanka horumarka inuu dhaqaaqo saraakiil ka agdhow xafiiska madaxtooyada ee somalilan ayaa waxay xaqiijiyeen in madaxweyne cabdiraxmaan ciro ay wehelinayaan wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyo ganacsato imaaraadka carabta u dhashay maalmaha soo aadan ay tegi doonaan magaalada seylac ee xarunta gobolka salel magaalo xeebeedkaasi ayaana la doonayaa in laga fuliyo mashaariic kala duwan oo horumarneed cirana wax weyn kama soo qaadaya ayaa la yidhi dhibaatada iyo isheeshashada waqti xaadirkan ay ishaystaan beelaha samaroon iyo sidoo kale beesha kale ee lagu magacaabo ama beelaha samaroon iyo sidoo kale beesha ciise oo haatan isku haysta deegaanada galbeedka somalilan dowladda sultanka imaaraadka carabta ayaa la xaqiijiyey inay bixinaysa lacago badan oo gaaraya malaayiin dollar kuwaasi oo lagu maalgelin doono sida ay xoguhu tilmaamayaan mashaariic ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha dhismaha dekado iyo waxyaabo kala duwan oo laga fulinayo deegaanada galbeedka si gaara magaalada saylac waxaana la doonaya ayaa la yidhi in dekadahaasi ay isticmaalaan wadamada waqti xaadirkan baahida weyn u qaba sida etoobiya arrintanna jabuuti waa ay diidan tahay waana waxa keenaya ayaa la yidhi in dowladda jabuuti waqtigeeda ugu badan ay gelinayso sidii gebi ahaanba meesha arrimahan looga saari lahaa oo dhibaatada saylac waxay doonaysaa in ay noqoto mid joogto ah tanina ilaa iyo hadda waxaa leeyahay dadka reer somalilan waxay u muuqdaan kuwa soo fahmaya cabdiraxmaan ciro isagu maba doonaya ayaa la yidhi in uu ka shaqeeyo arrimaha nabadda iyo waxyaabaha la midka inuu waqti xaadirkan taataabto ma doonayo taa cagsigeeda waxa uu doonaya ayaa la yidhi in gebi ahaanba uu mashaariicdaasi dadka iyagoo aan ogeyn halkaasi fulintooda laga guda galo waana qorshe ballaaran oo la doonaya in reer somalilan lagu tuso horumarka iyo jihada nabadda iyo halka uu ka jiro iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa weli hub urursi xooggan waxaa laga dareemayaa gudaha deegaano ka tirsan galbeedka somalilan waxyaabaha la yaab kalena waxay tahay in beelaha samaroon iyo ciise weli maleeshiyaad kala duwan ay ku soo gurayaan deegaanada ka tirsan galbeedka somalilan saacadihii lasoo dhaafay jabhadihii ugu badnaa oo ka yimid dhinaca jufooyinka beesha samaroon ayaa lagu soo bandhigay gobolka owdal waxaana jabhadahan ay doonayaan in ay la dagaalamaan beesha ciise kadib markii la xaqiijiyey in beesha ciise ay si cad u diiday wax kasta oo nabadgelyaha oo la doonayey in laga sameeyo deegaanada galbeedka ugaaska beesha ciise ayaana waanwaantii socotay diiday waxa uuna ku adkaystay in ay dagaalamayaan tani waxay keenaysaa ayaa la yidhi in beesha samaroon cabsi weyn ay soo wajahdo waxaana hadda beesha samaroon ay muujinayaan sida ay doonayaan in gebi ahaanba ay isku difaacaan tani oo ka dhigan ayaa la yidhi in galbeedka somalilan xaaladeeda weli ay sii cakirnaan karto ciidamada militariga somalilan ilaa iyo haatan ma jiraan wax tallaabooyin ah oo ay qaadeen waxaana marba marka ka dambaysa xaaladdu ay tahay ayaa la yidhi mid faraha ka sii bixi karta iyada oo jabhadaha beelaha samaroon iyo ciisena ay u muuqdaan kuwo mar kasta doonayo colaadna u toog haya waxaana inta badan ay ka soo kala gudbayaan wadamada jabuuti dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo xitaa deegaano ka tirsan somalilan oo jabhadaha qaarkood ayaaba ka imaanaya dhinaca iyo ciidamada somalilan warar aan la xaqiijin waxay sheegayaan in ciidamada somalilan sidoo kale ay bilaabeen inay ka baxaan deegaano badan oo ka tirsan galbeedka somalilan iyagoo ka baqdin qaba in dowladda halkaasi ay dagaal ku geliso waxaana la leeyahay xitaa beesha isaaq gudaheeda ayaa hooyooyinkii iyo waalidiintii waxay bilaabeen in askartooda joogta galbeedka ay taleefanada ka wacdaan tanina waxay keentay ayaa la yidhi in askar badan oo ka tirsan militariga somalilan haatanba ay bilaabeen in ay aadaan deegaanadii ay ka soo jeedeen si gaara deegaanada beesha dhexe isaaq tani waxay caqabad ku noqotay ayaa la yidhi in ciidamada ay joogaan meelihii loogu talagalay iyo xoryahooda marka la joogo galbeedka somalilan haatan deegaanada galbeedka waxay u muuqdaan inay foolanayaan dhibaatooyin xooggan haddii aan laga horteginna waxaa la leeyahay tani waxay noqon kartaa dhibaato weyn taas oo sababi karta in gebi ahaanba deegaanada galbeedka somalilan ay ka dhacdo colaad la mid ah colaaddii lagu waayey deegaano ka tirsan
bariga Somaliland madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale Ismaaciil Cumar Gel ayaa xitaa wararka qaar waxay sheegayaan in macquul ay tahay in ay si toos ah u wada hadlaan waxaana arrimahan ku jira ayaa leeyahay dowladda ay ka mid yihiin Faransiiska taas oo si weyn u doonaysa in la dhameeyo dhibaatooyinka waqti xaadirkan ka jira deegaanada galbeedka qodobkan iyo waxyaabaha ku soo kordha isla halkan ayaad ka daawan doontaa dhinaca kalena wararka imaanaya qaybo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxay sheegayaan in ay socdaan dagaallo xooggan oo u dhaxeeya maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada Jubbaland oo kaashanaya kuwa militariga Soomaaliya howlgalladan ayaa inta badan waxay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo Baarsanguuni oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxaana la xaqiijiyay in ay jiraan khasaarooyin xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac al-shabaab badan ayaa halkaasi lagu dilay sidoo kale kooxda ayaa madaafiic ku garaacday saldhigyada ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin aagga Sanguuni oo qiyaastii 40 kilomitir u jirta degmada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose weeraradan waxay yimaadeen kadib markii argagixisadu isku dayeen inay isaga gudbaan deegaano ka tirsan Jubbooyinka waxaana arrintaasi ka hortagay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in hadda xabaddu ay qawowday laakiin waxaa jira khasaaro xooggan oo dhinacyadan soo kala gaaray inkastoo haatan aan si dhab loo xaqiijin karin khasaare inta uu leeyahay saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in saacadaha soo aadan ay faahfaahin rasmi ah ka bixin doonaan waxa ka socda deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland si gaar ah gobolka Jubbada Hoose waxaana ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay in haddanba ay wadaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo la doonayo in gebi ahaanba la isugu furo deegaanada u dhexeeya Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose halkaas oo inta badan argagixisada al-shabaab ay isaga gudbaan qodobka intaas ayaan kaga gudbayaa ugu dambeyn qodobada caalamiga aynu gelinahay dowladda Israa'iil ayaa u muuqata in gebi ahaanba ay ka bixiso ama jibinayso heshiisyadii lagu galay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar waxaana la leeyahay ama xogii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in dowladda Israa'iil haatanba ay bilowday inay beegsato hogaamiyaasha muhiimka ah ee xarakada Xamaas ee ka dagaalantay magaalada Gaza saacadii la soo dhaaf waxaa la dilay mid kamid ah saraakiishii ugu muhiimsanaa ee Xamaas iyadoo Israa'iiliyiintu ay sheegeen in dilka ninkaasi loo geystay ay kaga jawaabayeen weerar lagu qaaday ciidamada Israa'iil ee ku sugan dhinaca koonfureed ee marinka Rafah waxaana ay sheegeen in la weeraray ama qaraxiyo ismidaamina lagu weeraray kolonyo ka tirsan ciidamada Israa'iil si gaar ah guutada loo yaqaan Jolani ee ku sugan dhinaca iyo marinka Rafah ama Khan intaasi kadib waxay sheegeen in ninka la dilay sidoo kale dhowr jeer Israa'iiliyiintu gudaheeda la isku khilaafay in la qaarijiyo waxaana ninkan uu ahaa ay yiraahdeen maskaxdii ka dambeysay ama qayb ka ahaa raggii ka dambeeyay weerarkii 7 Oktoobar lagu qaaday gudaha Israa'iil kaas oo sababay waqti xaadirkan dhibaatada ka jirta magaalada Gaza sidoo kale waxay yiraahdeen ninkan waxa uu ahaa farsamayaqaan hubka iyo kiimikada iyo waxyaabahaas isku dardari jiray tanina waxay keentay in Israa'iiliyiinta ay jaanis ku helaan sidoo kale ay u arkaan inuu ahaa nin halisa arrintan durbo waxaa ka hadashay Xamaas waxayna yiraahdeen waa in la dhowraa dhammaan waxyaabihii lagu heshiiyay Israa'iiliyiintuna waxay sii wadaan jabinta heshiisyadii Sharm el-Sheikh sidoo kale Mareykanka iyo wadamada wakiilada ka ah ilaa ay haatan Israa'iil ma jirto wax tallaabo oo ay qaadeen tani oo ka dhigan ayaa la yiri in gebi ahaanba xabad joojintii marinka Gaza ay burburi karto wadamo ay ka mid yihiin Masar Turkiga Mareykanka Sacuudiga iyo Qatar ayaa ka mid ah wadamadii damaanad qaaday xabad joojinta marinka Gaza laakiin ilaa ay haatan ma jiro wax ka soo naasacad oo xaaladdu waxay u muuqataa mid gebi ahaanba faraha ka sii bixisa waxaan leeyahay Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale qaar ka mid ah xulufadiisa golaha wasiirada ee midigta fog sida Itamar Ben-Gvir iyo sidoo kale Smotrich ninka la yiraahdo waxay doonayaan in dagaalka dib loogu laabto si xukuumadooda ay u sii jirto ilaa hadda Mareykanka wax jawaab lagama hayo maadaama xabad joojintii la jabiyay sidoo kale la beegsanayo saraakiisha muhiimka ah ee Xamaas ee ka shaqeeya gudaha marinka Gaza gudaha intaas ayaan kusoo gabagabeynaya wararkeena ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka ilaa dhamadka haddii aad soo gaarto waxaan ku xusuusinayaa inaan channelka subscribe inoo saarto qaybna aad ka noqoto saaxiibada ku xidhan waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 30,000 oo subscribe kaliya safarkeen adiga ayaa ka dhiman ee sulka saar oo subscribe inoo saar channelka mahadsanidin